ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وحا مسجدك إمام الشافعي حافظ ميفري أي صوماليدو ديغانهان ugu badan tahay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika lagu soo gabagabeeyay tartanka Quraanka Kariimka ah ee bisha Ramadaan kaasoo sanad waliba lagu qabto masjidkani iyadoo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii ku guuleysatay tartankani Quraanka Kariimka ah. waxaa munaasabada xiritaanka tartankani Quraanka Kariimka ee bisha Ramadaan intii uu socday goobta laga soo jeediyay wacdi diini ah ku saabsan fadliga uu leeyahay Quraanka Kariimka ah iyadoona ay ka hadleen culimada diin kala duwan. nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ka hadlayay xadiidka uu warinayo Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ardaa uu nabiga ka warinayo nabigu wuxuu yiri khayrukum man ta'allama al-Qur'ana وعلمه وحايد خير أمة المسلمين تأه أفكي القرآن خبرته حتى القرآن كسيبا. And we as Muslims have to understand this and we have to implement this in our lives. Today we find ourselves, many of us from a different country, living here in South Africa. There are many different cultures that we see around us. But the Quran is our culture. The Quran is our guide. And we as Muslims have to follow the Quran and implement the Quran in our lives. Khalahada wa losina. Khalahada wa losina yakid arorti. Min waliba intuu kaba gashado uu kadleyn jiray. Waxa lagu kormaro oo adduun kaalin lagu gaaro. Khalaaday galaabtiyo kaskiyo soo kartida maaha ka qaybgalaha kow galay iyo ninkii kaalin hore waayey ku walbaba wuxuu kala kulmaba kiisiga ku heliyey waxba yaan kurbada lala welwelin koob kalaa iman. asalaamu calaykum. shahaadada waxaan yidhi abaalmarin lacag baa jiri doonta oo ardayda ku kala guuleysanayaan. ardayga kaalinta koowaad 30 juz waxaa abaalmarin ugu helay قدر العقل والجارية شنكون أوران ما شاء الله مصطفى عيسى وكنت تبي كارثة الواقعي وحنا هاي صدقكم أنا كنت تبي كارثة الحال عبد اللطيف يوسف وحنا هاي لوكم مسيب حسن أو كارثة فرد الشباب هاي شيء كن مركز خاص وصدق جزء وحنا نقول بيننا كاتيجوري الله شنو تبي جزء أرضي كانت كوادري وحوالي أمير عبد الرحمن حيدر مدرسة السنة كيف صار؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الرحمن حيدر وحقوق الإسلام شهادة اليوم صدق كل وطن يسوونها. tartankani oo ay soo qaban qaabiyeen golaha dacwada culimada diinka Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika Albayaan ayaa waxaa sanadkani ka qayb galay 13 dugsi Qur'aan oo ka kala socday gobolada dalkani Koonfur Afrika ka kooban yahay iyadoo tirada ardaydii ka qayb gashayna ay ahaayeen 43 arday waana tartankii ugu horeeyay ee noociisa kala ah lagu qabto masjidkani Imaam Shaafici magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. Abdinaasir Soomane telefishinka caalamiga Universal TV Johannesburg.